عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada. waxay yiraahdaan waxay qaadataa 10,000 oo saacadood ku dhawaad hal sano inaad xirfad barato kana mira dhasho. xirfadda aan maanta ka hadlaynaa waa tumaal. tumaal waa kuma muxuu qabtaa xaguu bulshada kaga jiraa dhaqaale intee leeg ayuuna samayn karaa. aan ku hormaro tan ugu horeysa ah tumaal waa iyo waa kuma tumaal. annaga dhexdayada tumaal markaan ka hadlayno Soomaali hadaan nahay waxaan naqaanaa inuu tumaalku yahay shakhsi xirfadiisa lagu yasay oo bulshada dhexdeeda aan ku lahayn wax qadarina. laakiin aan eegno tumaal adduun weynaha intiisa kale. tumaal waa ninka birta soo saara, waa kan garaaca, waa kan shiila, waa kan naqshadeeya, waa kan soo gudbiya. ama ha noqdaan birahan guryaha ku dhisanayno, ama ha noqdaan birahan wadooyinka ku dhisanayno, ama ha noqdaan birahan ku duulna sida diyaaradaha iyo birahan ku socono sida gawaarida. adduun weynaha tumaal wuxuu ka leeyahay qiime aad u weyn oo aan la soo koobi karin. xushmadiisu wata, shaqadiisa iyo xirfadiisa lagu xushmeynayo, xooggiisa iyo cududiisa iyo caqligiisana lagu tashto. tumaal waa kaasa. kan ma aha anagu aan malmaleeganay oo anagu aan samaysanay. tumaalka runta ah waa tumaalka xooggiisa iyo caqligiisa lagu tashto. marka laga soo tago biraha la garaacayo iyo biraha la shubayo iyo biraha la soo saarayo, shaqada ugu weyn oo tumaalku qabto oo aan wada naqaano tumaalka ugu weyn waa injineerka birta design garaynaya naqshadeynaya, kululaynaya, wareejinaya, sida uu raba ka yeelaya, guryaha ku dhisaya. waa injineer. tumaal waa injineer hadaa maqashidna waa tumaal sharciyeysan oo warqadiisii wata. injineerinku ama tumaalku shaqooyin kala duwan buu bulshada u hayaa. mujtamaca uu ku dhex noolyahay shaqooyin kala duwan buu u hayaa. hadday noqoto dhisidii guryaha, wadooyinka, cisbitaaladii, hadday noqoto qalabkii caafimaadka uu isagu dhisayo, haddii ay noqoto qalabkii socdaalkii ama gaari ha noqdo ama diyaarad ha noqdo isagoo samaynayo. shaqooyinka uu bulshada u hayo injineerku waa garan kartaan. taas micnaheedu waxa weeye tumaalku shaqada uu adduunka u hayo. haddaba dhanka muhiimka ah ee dhaqaalaha markaanu eegno, tumaalka adduun weynuhu shaqo intee la-eg ayuu hayaa, dhaqaale intee la-eg ayuuna soo gasha. kaba soo qaadba ha aadin dhanka injineerinka, ha aadin maxaa la yidhaahdaa dhanka warshadaynta, waxaasoo dhan ha aadin. tumaalka u furan yahay maqsim yar u furan yahay birtiisa isaga garaacda, midiyaha isaga soofaysta, dhaqaale intee la-eg ayuu adduunka ka sameeyaa. tumaalada aan soo qaadana sida Japan, waddan horumaray ah. tumaalka Japan midiyaha adduunka ugu qaalisan Japan baa laga keenaa. midiyooyinka qaar baa 21,000 jooga oo dollar, qaar baa 19,000 oo dollar jooga, qaar baa 18,000 oo jooga. kuwaasoo dhan waa midiyo xarago ama kuwa jaabka lagu qaato ama kuwa guryaha la surtaa. laakiin ka fikir midida cuntada ku korsanayso sheefku isticmaalaya qudaarta ku jarjarayo hadday calaa xabad $1 tahay ka waran, oo aanay ahayn warshad midi ay soo saartay. midi tumaalku gacantiisu ku tumay oo isaga gacantiisu ku sameeyay laga dalbaday $1 hadday calaa xabad looga gadanayo. dhaqaale intee la-eg ayuu ninkaa samaynayaa. sidee tumaalka Soomaaliyeed uu tumaalka adduun weynaha ula jaan qaadi karaa? marka tumaalka adduun weynaha uu kolleejyo uga soo baxayo inuu birta barto, sida birta loo kululeeyo, sida loo garaaco, sida mashiinada la isticmaalo. tumaalka iyagu aanu iskool lahayn, lagana faanayo, loona furayn, hadda iyo had soo dhowtoona suu la jaan qaadi karaa tumaaladan midiyahooda $1,000 joogaan. markii midadiisii $5 joogtay laga dul keeno midi Chinese oo plastic dabada ku sidata, daabkeedu plastic yahay, sidee ku survive garoobi karaan? sidee buu tumaalkaas ilmihiisa u bari karaa xirfadan uu isaga awoogii ka dhaxlay hadduu og yahay in ilmahan aanay qutaliyoonkooda ka soo saaran doonin? tumaalnimadu waxay ka mid tahay xirfadaha Soomaaliyeed ee sii lumaya, ee laga sii guurayo, oo odagu aanu rabin inuu wiilkiisa ka dhaxlo, wiilkuna aanu ku fakarayn caruur dhali doono inuu ay ka dhaxlaan. faqri aawadeed
yasmo iyo quursi aawadeed dalkii iyo dadkii oo aan ku soo baraarugin micnaha iyo qiimaha uu tumaalku adduunka uu leeyahay haddii hay-ad Soomaaliyeed ama dawlad Soomaaliyeed ay fur lahayd iskool lagu kobcinayo lagu taabagelinayo tumaalka Soomaaliyeed birtumaha Soomaaliyeed waxaa hubaal ah inay Soomaali wax ka bedelmi lahaayeen waxaa hubaal ah Soomaali meel walba ay joogto inay u aayi lahayd waxaa hubaal ah wiilka birtaa sii baranaya ee يعني سي أدون كذا سيدا ما أنتو يقانان سي عسرية وبرانية إنو كاميرا دالها وحا أدونكو كفانان ويكوهر مران با أنوغو اسكو عينان أو اسكو قورسنا اسكو يسنا هادي قبر وحا جرتا آبهد كده حاشيتو بان لماذا سانجع لها إني مرايكان تهانجع لها كبداس يوتيوب بيلادا يوتيوب channel بيلادا تشيلسي ميلر بالي هذا وحي سايسا مديه كليه سميسا gabadhaas على مدي $800 baa looga gataa ilaa $1,000 waytan liistaan lagu jira dadku midiyeeda waa sugaan waqti baa lagu qabanaa waxa lagu leeyahay okay midi miyaa rabtaa midida hadda diyaar ma aha 6 bilood kadib baa midida la samayn doonaa birtan soo bixin doonaa birtan shiili doonaa birtan tumi doonaa birtan qaboojin doonaa birtan soofeyn doonaa 6 bilood kadib laakiin dad baa ka horeeya ولي مقاشين قبر اللي قبر متجانو تومالو مرايكنا هو ولي قام مقاش واتومال essentially واتومال تومال أنا مرايكنا هذا أنا صومالي هذا قفك برتا دوت ما مجلسة تومال قفك إنجليزي قفك أيدها يعني أيرم مونجرك أو برتا حديد كصوصارة واتومال نينك إليهم بلاك سميثك واتومال وشقوين كتومالك سمع tumaal qabiil ma aha shaqo weeye xirfad weeye tumaal marka gabadhan Chelsea Miller la dhaho haddaan sii fiiriyay waxaa jira dad xirfadooda sida Japanese oo kale hadda marka aragti fiidiyoyada laga soo duubo oo markay samaynayaan midiyaha iyo rafaadka ay u marayaan iyo inta saacadood ay ku qaadanayso waa u qiraysa waxa leedahay okay midida qofkaanay markii ay $1,000 joogto waa u qalantaa shaqaa gashay waxaan waa shaqo waqtigii baa laga hadlayaa dhididkii baa laga hadlayaa tamartii gashay electricity baa laga hadlayaa waxaas oo dhan baa laga hadlayaa dhaqaalihii lagu soo gaday birta waa inaad soo gadato Soomaa waxaas oo dhan baa laga hadlayaa marka waxaa leedahay okay waa u qirayaa qofkan shaqadiisa waa u qalantaa kun laakiin gabadha marka eegtid wallahi waxa tagtaa channelkeeda soo fiirsada wiilasha Soomaaliyeed ee suuqyada birta ku garaacaya iyadoo isku tabooyay kuwanaaba cilmiyeysanba wiilasha Soomaaliyeed baa la qaatay ayad mashiinada isticmaalaysa ma ahane waa ka mashiina badanta mashiinay haysataa gabadhu ma ahay marka fiirisid waxa isleedahay war wiilashaanaaba baasha garaac yaqaanaba haddana midideedu waa $1,000 $800 ilaa $1,000 bay joogdaan midiyaheedu waadna sugaysaa waiting list baad galaysaa dadku qofku siduu isu sharfo way dadku sida iyagu isu sharfaan way adduunka sida wax loo kala gato kaliya ma aha productigaaga inuu fiican yahay productigaaga waxaad soo saarayso waxaad gadayso waa inay wax tayo leeyihiin taasi waa halkeeda waxa kale oo ku raaca waa dalkaaga iyo dadkaaga iyo adiguba hanka aad leedihiin iyo meeshaad isla taagantihiin iyo sumcadda iyo sharaftaad isu yeeshaan waxaadan adigu isu yeelin cid ku yeeli mayso sharafaadan adigu isu yeelin cid ku yeeli mayso marka gabadhan iyo wiilka tumaalka ee xaafadaha suuqyada Soomaaliya ama Soomaali meel ay degtaba ka tuma birta maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin mujtamaca wiilkan wuxuu ka yimid mujtamac qurmay oo yasa oo quursada gabadhan waxay ka timid mujtamac u garaabaya oo le okay dad ba arkaysa commentiga markay bixiyaan akhrinaysid waxay leeyihiin tan waxba taqaano laakiin xirfadii ku caayi maayaan shaqadeeday wax ka sheegayaan waxay leeyihiin birta say u garaacdaa qaldan markay dhalaalinaysa say yeeshaa qaldan say u garaacaysaa qaldan haddaa commentiga akhrisid ma arkaysid qof le tumaal iyo tumaal ku dhalay hal qof oo le tumaal yahay tumaashu dhashay arki maysid su-aasha marka aan maanta qabo waxaa waaye intaasoo dhan oo aan idiin soo bayaamiyey waxyaabaha aan idin tusay oo dhan markaa fiiriseen adiga i daawanaya ma jeclaan lahayd inaad tumaal noqoto jawaabta hoose ugu qor